ducadaan in lama soo celiyo albaabada ilaahay waa loo furaa dalabkaada intuu leeg yahayna lama fiiriyo ilaahay waa ka ajiibayaa su'aashaaduba ha weynaatee ilaahay ducadaadaan waa ajiibayaa waxaa sugnaaday xadiis saxiixa rasuulka ilaahay laga wariyey calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi moxamed wuxuu maqlay nin ducadatan ku soo celcelinaya allaahumma innii as'aluka biannii ashhadu an laa ilaaha illaa anta alaxadu asamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ducada noocaana ayuu ninkaasi soo celcelinayaa rasuulka ilaahay baa maqlay sala allahu calayhi wasalam allaahumma innii as'aluka biannii ashhadu an laa ilaaha illaa ant الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله وحن وحكوه ويديسنا يا قريتانك أن توحيد كذا قري دراديس الله صو أحمدك حق اللغو عابده كليجيسة الله عرره الله بريو كاسو وح عفرورا عندلين أصغر عن ميلك صوفر عمين وحق المه أما أودقمه والله قرب ديك كرنا أي سجرين الله ساد ويديسنا يسا وحاد ويديسنا يسيدي باهدادا ربك ساد وشيغان يسا جل جلاله هدي عريري كسو وجهه دعاء تنسوع عليه إلهي فضلقس والله أقبليه من اللقو كسوع عليني دعاء هكا أكفوغان عريري النوع الدورة هالنقضيه فرج كيساد هليسا إن شاء الله سوع العلي مرو البكو وردي اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رسولك إلهي مركم مغلين كان وصدان دعاء سنية أي النبي محمد وحير عليه الصلاة والسلام والله ما قدرته إلهي بكبري كان مقع إلهي وينك بدن مقع يسكوينين magacaasoo haddii ilaahay lagu baryo oo ilaahay qofka baryada ka ajiibayo magaca kan oo ah ducadan haddaad ilaahay wax ku weydiisatid ilaahay waa ku siinaya waxaas aad ka doonaysid haddaad ku baridid ducadan ilaahay waa ka ajiibayaa waxaad doonaysid buu ku siinayaa waxaad ka cabsanaysid buu ku dhaafinayaa caafimaadkaad rajaynaysid nooc kastuu yahayba ayuu ilaahay ku siinayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa danteenna inuu gudo meel kastana wehel nagu siiyo qabriga ilaa qiyaame faraj khayr qabanna siiyo saaxiibbo wanaagsanna siiyo rabbi ha naga dhigo kuwa u tasbiixsada asaga in badan asaga xusa ilaahay sababtiisaan ku soconnaa wax ku arkaynaa asagaa qofka dhibaataysan ducada ka ajiiba ilaahu ducadeenna aqbal meel kaloo aan magan galno u cararno ma jirto oo xagga ilaahay aan ahayn ilaahu noo hibe wax kastoo wanaagsan oon rajaynayno adduuniya aakhiro naxariistaada iyo deganaanshahaada allowna dul saar shay walba rabbiyo waad awooddaa ilaah adduunyahana siiyo wanaag aakhirana wanaagana siiyo cadaabkana ha naga ilaaliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa qof walba oo ducadan iyo dikrigaani sii faafiya inuu hamiga ka qaado murugada u dhaafiyo faraj khayr qabana u siiyo ilaahu qofka ducadiisa